slogan kaasi waa wax aad loogu faano runtii oo ammaan mudan waxaad la socotaanoo waqtigaa uu ka hadlayay ninka la yiraahdo Cabdullaahi Suldaan Timacadde waxay ahayd waqti runtii Soomaalidu intaan ay boqolkiiba 1000 jeer ay ka fiicnayd kana niyad samayd qabyaaladda iyo dhibteeduna ay ka yarayd laakiin waqti kasta oo Soomaalidu dhibaato soo marto badanaaba dadka wax badbaadiyahay waxay ahaayeen dhalinyarada markii gumaysigu Soomaaliya uu haysto uu kala qoqobayay dadkii bilaabay halganka waa la socotaan kullu waxay ahaayeen dhalinyaro oo ninka u weyn uu jiro 33 sano ninka ugu yarna uu jiro 16 sano ayagay ahaayeen kuwii xornimada raadiyay ayagay ahaayeen kuwii dagaalamay ayagay ahaayeen kuwii Soomaaliya ka saaray gumaysiga isbedel kasta oo dhacana Soomaalida kuma koobnee adduunka meel walba waxa horseed ka waa dhalinyarada marka maadaama Soomaaliya hadda 20 sano colaad iyo dhib ay ku jirtay sida wasiirku sheegay in dhibaatadaasi sabab u yahay qabyaaladii bilowgeedii ka bacdi sidii doonto ay isu bedeshay dagaalkeenu marxalad badan buu soo maray mid qabiil buu soo maray mid qabqabluu soo maray mid urur diimeed buu soo maray laakiin bilowgiisii waxaan doominay wadankeena iyo dawladdeena ku duminay waxay ahayd qabyaalad marka mustaqbalkii idinka la kaga fadhiyaa sababtoo ah mustaqbalka la rabo in lagu ciyaaro oo ama qabqablaha noqday ama cid kale ha noqotay la rabo in la seejiyahay waa mustaqbalkiina waa idinka kiimiye weey kooda iyagu way soo qaatay marka kiimiye weey marka qofka dhalinyarada ahi dantiisu qabiil kuma jirto dantiisu waxay ku jirtaa dawladnimo waxay ku jirtaa wax dhisid waxay ku jirtaa in wadankaanu hagaago annagu jiilkan hadda idinka aabayaashiina wadanka ayaa waxna soo baray laga soo bilaabo elementary school ilaa jaamacad shilin kama bixin buugan lacagan buu ku gatan mooyaan waxbarashada bacdina wadankayga ayaa ii suurtageliyay inaan dabadda aado oo haddana wax ku soo barto marka waxaan rabnaa dawladnimadii saas ahayd inay dib u soo laabato waxaan rabnaa in wadankeenii uu dhismo waxaan rabnaa in dawladnimadii dib loo yagleelo waxaan rabnaa qarannimadii iyo karaamadayadii ee qabyaaladda ku ciyaartay inaan dib inta isugu kabkabno aanu aan dib u dhisno marka waa laga maarmaan waxaan rabnaa idinkuna aan hormuud ka noqotaan runtii waa barnaamij unique ah oo gooni ah aad baan ugu mahadnaqayaa intii fikirkan lahayd ee ka qayb qaadatay arrinta iyada ah saada socotaan qabyaaladdu sida Cabdullaahi Suldaan Timacadde uu yiri waxay ka hor imaanaysaa isku duubnaanta horumarka iyo is-aaminida inaad is-aamintaan idinka ayaa isle idinka ayaa walaala ah idinka ayaa mustaqbalkiinu meelkooda jira saas ayaa la rabaa markii aad u fahamtaan qabyaaladdu sidoo kale waxay diidaysaa ka hor imaanaysaa wax wada qabsiga haddaan wax la wada qabsan oo wax la wada dhisinna sidee dawladnimo iyo horumar lagu gaarayaa marka maadaama marka ay caqabad ku tahay wax wada qabsiga iyo horumarka dalka waxaa laga maarmaana in laga hor yimaado in isku meel looga soo wada jeesto sida hadda aayadda ku qorayd qabiilka waa la isku gartaa waa sumad qofku A iyo B iyo C weey wax kaloo ay tahay ma jirto marka laakiin intaas inaan la dhaafin qofku laan reer unbuu ka dhalan lahaa laakiin intaas inaan loo dhaafine waxa kaloo wax lagu qiimeynayaa inay noqoto wax ka duwan in wax ka duwan ay noqoto qabiilka marka qabiilku wuxuu ka hor imaanayaa wadaninimada iyo Soomaalinimada uu ka soo horjeeda marka sababtoo ah qofku hadduu wax kale uusan aaminsan qabiil kale aamino waxay noqonaysaa marka in ay dhibaato ku noqoto horumarka dalka waxay qabyaaladu meesha ka saaraysaa qofku inuu aamino kartidiisa aqoontiisa iyo qofnimadiisa waana wax kala heshaa marka sababtoo ah badanaaba dadka wax dhiba qabiilka laga yaabaa inay si xoog u aaminsan yihiin waxa weeye qof ama isagoo wax ku dulmiyay ama lagu dulmiyay way
marka intaas meesha ka baxdaa loo baahan yahay qofku uu ka kalsoonaado qofnimadiisa dadnimadiisa iyo waddankiisa iyo sababtoo ah markii la helo dowladnimo oo laga gudbo goboleysi iyo qabiil ayaa mug weyn ayaa geed weyn ah oo la wada harsan karaa marka dowladnimo ayaa deeqda Soomaali ayaadii marka aan u dadaalno inaanu helno xoojino dib u abuurno idinkuna aad horseed ka noqotaan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan idin kula dardaarmayaa marka dhalinyarada tihiin waxaa laga yaabaa hadda inaad colaadan kulligiin waqtigii ay abuurantay ama wax dhashay ama wax yar ka dambeeyay ama wax yar ka weyn inaad tihiin taas marka waxay keenaysaa qofku marka bi'ada uu ku dhaqmo ama ku koro ama ku weynaado waxaas xaaladda ku abuuran oo ku wareegsan inuusan ka gudbi karin iyada inuu yaqaano iyada inuu arkay iyada inuu ku barbaaray dadka wax ka duwan ba uusan aqoonin laakiin waxaan idin sheegayaa wax ka duwan baa jira wax ka duwan Soomaali waxay ka horreeyay ee ahaan jirtay weeye dowladda ahaan jirtay weeye dadnimada ay lahayd weeye qarnimada ay lahayd jirtay weeye karaamada iyo sharafta ay lahayd jirtay weeye intii soo joogtay ayaana garanaysa waxa kale oo ka duwan mustaqbalka ka duwan isaguna mustaqbalkuna waxa weeye sidoo kale dowladnimo wanaag wada jir Soomaalinimo iyo isku dubnaan weeye marka haddii adduunkii meesha aragtay uu marayo information age aan ku jirno ya the age of the internet aan marayno ya marka waxaan primordialka miyaan ku wareegaynaa marka ku sar adduunka soo gudbay waa maya ya dadkina la gudboona dayaxuu u guuro min qabiil gargaar saday mala gaari maaye ku hal dadkina la gudboona dayaxuu u guure nin qabiil gargaar saday mala gaari maaye guulaystayaalow geediga waday guulaysta ma santaa